bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal kusoo dhawaada mar kale telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka fanka iyo suugaanta oo hadaha iyo kala ka soo gudbino xarunta dhexe ee telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa barnaamijka fanka iyo suugaanta waa qaybtii labaad ee wareysan la yeelano Xamse Maxamed Jaamac oo lagu naanayso hudhud oo ah nin hal abuur ah ayaa barnaamijkan qaybtiisii labaad ku soo gudbin doona intii niida wadayaal la socotay barnaamijkii kan ka horeeyna waxa daawateen oo la socoteen in maansa dheereed oo ka warreeysay taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor lixdamaadkii iyo kadib oo ka soo bilaamaysay 1864 tan iyo sanadkan aynu ku jirnay ee 2020 in Xamse kulan kale oo wanaagsan daawade مبارك عبد يوسف waxaan jeclaan lahayn bal hadda barnaamijka fanka iyo suugaanta in aynu mid kale oo kamid ah taxaaga halkii ka sii anba qaadno oo tixda dhaqanka ah in la yiraahdo midadiin bal daawadayaasha aad ugu waranto مبارك عبد يوسف aad baad mahadsantahay horta barnaamijkan aad u marti qaaday fanka iyo suugaanta adiga iyo howlwadeennada telefishinka qaranka waad mahadsantihiin tixda aan halkan ku hayo magaceeda waxa la yiraahdaa midadiin wuxuu soo baxay gabajaasi bishii June 2017 waa tix dhaqan ka warramaysa weey qayb waxay ka warramaysaa beecada iyo deegaanka iyo quruxda dhirta iyo wixii qayb waxay ka warramaysaa dhamaantii iyo deeli qaybta u dambaysa gabadhuna wuxuu ka warramayaa waxa la oran jiray xidriska ama cilmul falad ayuu ka warramayaa gabadha magaciisu waa midadiin waxaan ku hal qabsanayaa inaan saaxiibno la yiraahdo Cali Wadaad Yare Cali Saalim markaa wax xiligaas soo baxay 2017 wuxuu ku bilaabmayaa murti jabay habeen Saalim oo kama maleegteen hawraarta maado qurxoon hadal la miisaan meexaanaheeda ka daran mudka iyo cibaado madadaalo badan bay taqaan mararka qaarkeeda macaankeeda ruuxii dhamaa kama muraad yeesho hay'ashee mid baan doonayaa inaan malkeeyo dhaqankeena mudan baan rabaa inaan mas'alaayay haaneedka midaan jeclaa inaan ka maalaayo midadiina waan soo duraa mooda jalabeed bal kuma madadkeedu tix baan idin magaabsiinay may horay meehidaan oo dunida maasheeyay miiraale soo dananayo hodol mataaneeyay fadad shaal u muuqdo aroor dhibi camuuneeyay sidalkoo maraaraha udoon madana maalay mardhacyada qurxoon iyo cirkoo midab jeedaantay sabad iyo mawda ceelasho maax la dumi gaaray calcaliyada mashxaradaysa iyo moqorka ceedaaray harad iyo dhijaamaha mudgood marinadii buuxshay durdurada iliilaha mare moosas jabinay ee mawlaheen noo shubay muxibo loo heesay waa shay manaafiic leh oo mahad la deexday dunidii misaalkii lahayd sulama jiirkeedu indhaweyta may miijanayn maalmihii taliyay afarta daruurahan marshiyo maayad iyo xoodho onta meeran xilli uu jiriyo waqal muraadkii dhamasalooyin heeladu dhigtiyo madad hilaacii cirka oo sitaa cimarsaday maalin iyo leeldhe masali abwaan iyo qaryaan mahadhadiisii dheh intaas waa intii roobabka ka warramaysay wuxuu noogu xidsiiyey qaybtii dhirta markaa dhirta wuxuu manta baxay tidaadoo murtiri meel lagu reeyo maajeenta caws iyo jargoor marinka loo daayo jeerinka iyo gulaanka markaa moonad lagu sheego mahuuraan dareemada baxday maalka lagu foofsho run ahaan midcaanyada dhashay malabku tiixaayo geedaha maraaj iyo cilaan muuqa lala yaabo murahda iyo jaloolkoo dabeed meedhax laga diiro maxrashoon diraaceed dhirto ubuxu maadheero hawd iyo masaaray ku taal maadhi darareede dunidii misaalkii lahayd sulama jiirkeedu indhaweyta may miijanayn maalmihii tiraya afartaa milaaxdan curshiyo xabad marsheedii dhamaydiye minjaafko ishelay muxorkii daaloodhe hoobaan mareeroo da'diye malabkii doocaandhe cosab iyo madhool soo bixiye midho kaliileedhe masalii abwaan iyo qaryaan mahadhadiisii dhe waa qaybtii markaa dhirta ka warramaysay waxau inoogu xidsiinayaa geeli iyo dhammaantii oo wada socda weliba dhammaantii qaybta fardaha oo waxaa jira fardaha dameeraha iyo baqlaha oo waxa gamaan la isku dhaxdo wuxuu yiri hal madiixa meesiye irmaan maalka dunideena marka ramad barwaaqada curtay kuraygu meel daajo iyadoo madeynadii dhasho lagu mabsuudayo xafta iyo xidsiinto markaa lagu madiidayo oo uu qoradiyo misteed gabadhu maalayo oo culayga doobina marsanay maasha keenayo marka uu tireebkii ku jiray maqal u reemayo dhadihii dunuunu camaqlaa kama masuudaan dhanka kale mid baan doonayaa inaan marriimaayo fardihii madowgiya lahaa meydal iyo qaaje fardihii magaankiya lahaa xamar madaalaana ashtirkaa cadceedaa matelay midab ekaantu wadan markay daaqayaan dixi macaanaatay dhawaan raaca waa lagu mudaa sibiq ma yeedhaane dunidii misaalkiya lahayd sulama jiirkeedu indhaweyta may miijanayn maalmihii tegey
afartaas sidii deel mirtari dhabi muraaf jiidha sida milay gulaan qooqan iyo micliskii jaandhe sandhe aan dakaamin marnaba mile cabraar jiidha heensaha midkii lagu guriyo jira madiid jiidhe masali abwaaniyo qaryaan mahadhadiisiidhe halkaa ereban isdul saadhina heensaha faraska marka la heensaynayo waa marka dee shalmadii toorihii rakaabadii wixii oo dhan loo dhammaystiro qalabkii farasta oo dhan waxaa kaloo jira markaa ku obasaydaa jirto ama kullida oo la dhahdo leedafuul farasta marka la leedafuulo isagoo aan waxba lahayn oon shalmad lahayn oon waxba lahayn cadaysnimo sidiisiiya ayuunbaa la fuulaa wuxuu yihi qaybtan waa qaybtii markaa xidigista wuxuu ihi saxalkiiyo mariiqooja tiri dunida maabkeeda oo manaasiltoodii xumaa midhan la diidayo oo minyuulakh iyo daaxidii laga mildhaabayo oo dayaxu majaruu lahaa maa in lagu biirsho oo makhluuqu ifafaale roon madal ku faalleeyo oo xidija miisaan la yidhi bari ka soo muuqdo mushtar waa salleelle haddii maalku hiyi raaco waa mareydhe dheer lagu farxiyo saban mulkiiliya mahdigii la doondoonayaa subax la moodaaye lama dhuuro adigoo mar helay mahad ilaahayna dunidii misaalkiiyo lahayd sula majiirkeedu in dhaweyta may miijanayn maalmihii tidhi afartaa maluurahan bartiyo moore quruxdeed dhexdaa minanka saadaaliyo muhindisoodaadhe cilmi falada duulkii martiyey macalinkoodii dhan muftidii rubaan iyo curaaf muqadimkoodii dhan masalii abwaaniyo qaryaan mahadhadiisii dhe inahaasi waa meeris jaba ina magaalo way badin maayo hawraartan iyo erey maceedkeeda dhaqankeennu waa mawjad iyo heen la muudsada ee maxastii adnaankeenna bara lamidu waa muushe adnaanteena lamidu waa muushe waxa weeyaan dee dhaqanku in dadka iyo ciddaan garanayn iyo ubadkaba lagu maaragta la bara aad bay muhiim u tahay tixdaas midhadihin halkaasay ku eegtay miyow horta sababtii kamabaynu sheekayn ay tixdu kusoo baxday 2017 bishii juun annagoo maqaaxi jalab ka sheekaynayna ayaa waxaa laysla soo hadal qaaday dadkii hore iyo dhaqankii hore iyo wax noocaasa deetana oday meesha joogay baa wuxuu yidhi nin qolada yaryara wax tirisaa iyadu dhaqankaba waxba kama yaqaanaan dee xataa maba yaqaanaan waana inta ugu badan dee niminka matalan hal abuurkeenu wuxuunbay ka maansoodaan meelo yaryaroo soko dee dhaqanka way yar tahayba intan magaalada dee maruu daaraha iyo dhawaadhida iyo waxaanu ku maaragtay mataalo ayay sugaantoodu oo qofba waa bay-adii uu ka soo karayo wixii uu la soo jaanqaaday moogta markaas waxaan tirniyow baa dhaqankana kumaad xumayne ti horta dhaqanka inaad aliftaaba malaa qurux badan maalintaasay igu soo dhacday sidaasaanu alifay markaa berigaas ahayd maasha allah waa tix aad u qurux badan dadka markaad u maraysa balaata ka warran maxaa laga soo falceliyay miyow dee waxay yidhaahdaan malaa qarnigii hore dee la tiriyey malaa raggii salaan iyo raggii hore ayaa tiriyey bay ku odhanayaan adigu malaa gabaydhan uu kaa wenyeme mabalihid ay dadka qaar ku odhanayaan waa hagaag aan ku soconna bal hadda maansooyinka kale maanso jacayl ah ayaad marya carababday maxay ahayd maansadaa waxaa la yidhaha cishqi waxay soo baxday 5tii bishii 5aad 2015 markaasoon ku jiray dugsiga sare waxaan xasuustaa markaa sababtii ay ku timid iyo dhacdadii ay tixda ku curatay maalin maalmaha ka mid anoo hadiya jeer alla duhurkii baan yara seexdaa moodi anoo duhurkii seexday baan waxaan soo kacay salaadii oo casar oo laga baxay dabeetana soo roob baa da-ayo dhulku waa barwaaqaysan iyo waa nimco dabeetana markaan weysaysteen iska tukaday baan damcay inaan dukaanka alaabu doonto markaa waad dareemi kartaa jawi rooban oo bishii 5aad jooga weliba waxaa la ydhaha bisha 5aad roobabku iskuma jiraanee roobka dirirka cawleed la ydhaa ayaa da-a dirirka cawleedna waa roob aada u biyo badan oo aada u barwaaqo badan galabtaa markaan gurigaasa uga soo baxay dhirtii iyo dhulkii iyo dhagxaantii oo qurux badan roobkii dee boorkii iyo siiradii iyo wixii u ka maydhay ayaanu soo toosay dabeetana dukaankii aan qabtay daaska waddada loo sii maro waxaa ku yaala sakad yaroo laba dhinacba ka ah gidaar oo dhexda dhutin yar ah dhutaan yar oo biyuhu fadhiistaan dabeetana marka roobku do-o labada dhinac labada jirjir mid baa la raacaa jirjirka markaa la raaco had iyo jeeraale wax dhagxaan baa taalla oo dhagxaantaasaa la dul maraayo laga tallaaba
dabeetana waxaan dukaantii baan tiri wixii aan u tiri baan ka soo qaatay soo noqodkii aan soo noqday markaan bartii biyaha ka soo tallaabayo ayaan waxaa la kulmay inan dee aan markaa isnaqaanay waanu isbariidinay bariido kadib galabtaa dee ma garanayo jawigii wax bedelaya jawi qurux badanoo dee jacaylka iyo roobku malaa waaba ma garanaysa waxba isku yihin baa sooranaysaa mararka qaar inaan qurux badanoo biyo dahab u eego markaan isbariidinay aan isdhaafnay baan sidaa usii yara eegay haddana qoraansida daymadii dambe markaasaan quruxdii iyo shacnigii inantaa ka muuqday iyo dhalaalkii ayaa markaan guriga tegey ay tixdan igu curatay sidaasaan tixda u curiyey 2015 bishii shanaad tixda cishqi baa la yidhaa annaga iyo dhacdadii inantana dhex martay si toosa uga warramaysay si guud ayay wax uga warramaysaa bay-adii iyo quruxdii iyo dayraankii markaana way yara carabaabaysaa wuxuu yidhi cirkoo diri ramaaloo casar gaaban da-ayoo dhulka ciiddu maaxdoo calcalyada xareeddii nuur lagu casuumoo jeedhaan casuus lihi midabkii cagaaraa cidhif baridda laallimo ku ildhool caddayso galabtaa cadceeddii ceeriyaamadidii soo jeedaha caleentiiyo curubtii madhooshoo cinabkii bislaadoo midhihii caseeyoo hoobaan cidaado caraf lagu majeertoo shimbiroo cidoodii isu codad habaabeen ayaan kugu cilaaloo kaama caajisaaye ilcas iyo xareedeeyo codor iyo urbaadeeyo cooliyo daruuray cawsha tii bildhaaliyo cajabliya haldhaa iyo caynabkii fardood iyo daa-uus carcaarliyo quruxdii masciid iyo waxa tahay cirjirhkii cilmi falaga doorsho anna milada caashaqa waxaan kugu cilaalaa cudladay jirhkeediyo cad ku yaalla feedha ama maahir ceeloo celalyaan lahayn oo inta cuud hormaysaa isu calan walleeyaan calaf weeye dunidiiyo kolba laba iscudhataa celceshado jacaylkoo wada maalo caano cimrigood ayaamaha iyadoon iscaasiyen isku horayo cuud baa caalamkeena joogaadinoo cudooneeya cagta cirifkaaga dhowroo cagta bidix ka jaamee cosab lagu badhaadhiyo midho cobol ku yaala iyo cadradii haweenkay haddii aydi cudhan leyd casargaabka fiidkaan curashada afkaygiyo caqligayda maaxdiiyo danankiiyo codkaydaan kugu caruusi lahayoon sacab iyo ciyaar iyo culadii mashxaradii caruurkaaga dhigila adna mara casaan loo xagga sare cagaartoo dhexdu ay caddaantoo cirir madow ku taallaad culasaarka tulanley cakuweeye dunidiiyo abidkaa calooliyo cisho maad dareenteen cakuweeye dunidiiyo abidkaa cod dhiifliyo cadho maad dareenteen cakuweeye dunidiiyo noloshaadu caarcarcaway may ahaateen cakuweeye dunidiiyo dharaar ruux ku ceeliya cidla maad dareenteen tix yaroo fuban bay daysta haydo waayaheeda wadata bahalkaa jacaylkaa dhalinyartu aad bay uga cabatahay adiga marna niyo horta isma badnin xataa mararkay dee dhacdooyinku ku soo maraan waan iska yara ignoor garayaayoo waan ma garanaysa waa isdiidsiiya waxaan ka jecelahay inaan hadbadiyaa curiyo suugaanta kale ee arrimaha bulshada khuseeya waa waxtarka badan leh dee manfaca leh waa farakutiris tixaha aan wax jacayl iyo cishqiyo la xidhiidho aan tiriye way yar yihiinba suugaanteeda kale ka badan bal hadda halkaa jacaylka haddana ku siinayno magaalada berbera waa adiga reer berbera berbera marna wax ma ka tiri berbera sanadkii hore dabiyaaqadiisii ayaan habeen tix yar aan berbera ugu talagalay ayaan ka curiyey had iyo jeer aaladda berberina waa magaalo qadiimiyo oo aad fac weyn leh marageeska africaba laga warramaayo sidoo kale qolada joogtaa u dacaydaysa in aad maba sheegatid dee reer berbere meeshana reer hajaysuun baa haydaas maadna haysaa deetana waxaan sii bal sidaad eedda sida yara dudo tixdaa yare berbera ayaan hees baan ugu talagalay markaa hees ahaan in loo qaado laxankiibaa hadda lagu guda jiraa laakiin weli lama tumin heesta waxay soo baxday 12 bishii 12 2019 waa dabayaaqadii sanadkii hore waxay ku bilaabmaysaa iyaduna goobaha la booqdee lagu beernuglaadee badda maayadeeda iyo bilicdeeda gaarkaa nafta loogu baaqay baradii dalxiiska ay berberaay siraadnow meel baaxad weyn loo bari iyo bannaan iyo buur lagu wareejo lagu taxay bilada iyo quruxdii bilaadkaay berberaay siraadnow degmadii barbaartiiyo balwada iyo heelada boqolkii saneed tegay u ahayd bidhaantee boodhari ku faantee kaljacaylka beertaay
berberaay siraadnow ilbaxnimada baarka iyo aasaarta biid kala biyahani dubaareed bartii laga bilaabee dalku beedsanayay berberaay cudoonow cilad iyo butaan iyo cudur kugu ballaadho bulshadaada saaqiyo kuma bada ilaahay boodta iyo xanuunka iyo daacuunka beermee berberaay cudoonow nina beydka heesaha uma curiyo baantee cid inaad bardheer tahay anigaa bayaansheeha barooran waaqaa berberaay cudoonow maasha allah berbera iyo geygaba guud ahaan allaha barakeeyaan leenahay waa magaalo kule faca weyn leh oo taariikhiya oo ka mid ah meelaha ugu faca weyn Somaliland iyo Saylacba waa hagaag bal hadda maansooyinka aynu hore ugu sii soconno dhanka siyaasadda iyo arrimaha siyaasiga ah marna ma ka tirsay inkastoo aynu hore soo qaadanay ba hore aan laftiido siyaasadda ka fogno taariikhiya waa jiraan mubaaradow waayo qofka hal abuurkii waaqica taagan ayuu la shaqeeyaa waxa weeyaan hadba wixii jira xaaladba ayuu tilmaamaabaa la yidhaahdaa gabadhuna wuxuu qiimo leeyahay marka xaaladiisa la taagan yahay wax laga yidhaahdo ha si fiicanna wuu u taabadhelaayo wuxuu noqdaa mid waaqica la jaan qaada waxaan halkan ku hayaa gabay la yidhaahdo alalaas alalaas waxa uu ka hadlayaa siyaasad weliba bay-adii aan ku dhashay deegaan ka baxsan siyaasad ka jirtay buu ka warramaya marka africa laga tago waxaa jirtay siyaasad ama dee dagaallo iyo colaado isku bedeli gaadhay marmarka qaar dagaallo siyaasad ka dhex taagneed maraykanka iyo north korea haa berigaasaan waa kuwii gantaalaha tijaabin jiray north korea moota kim jong un iyo berigaasaan tix yar labadaa wadan ka idhe iyo waxay inagala gudboon ama heerkan anigu markaa ka taagnaa siyaasadooda iyo aragti ahaan ayay tixdan cabiraysaa alalaas baa la yidhaahdaa waxay ku bilaabmaysaa orka baxaya uurada cirkiyo niman ordoonaya alalaas kii maalmahan jiraan ku istareexaaye axad bay gantaalihii dhaceen lamana eegayna aarshaashla nimankii lahaa untii cuni waaye jimi waaye aydii turaamtan iyo iidiye sida udhub dhallaan fooshayo oo hindararaya u olole sidii deel dhaliyo idhir maqaarayda tiim joonna wuu oodhayaa halis intaa laydheer rag islaam u shuuraystayo eeday weheyaana waanwaantu waa uubsatiyo af iyo baarkiise asaraartankoodan rabaa inuu adkaadaayo iyadoo islaayaan jeclaa oorta waa beriye iskhilaafka qaanuun jabiye lama ilaawaanku nasri weeye ee biyo malaa ood lasoo rogaye xaggayda daruur iba furtaa loo abtiriyaayo onrodkii helaa caatarmool la ashqaraaraaye geedaha dhirtii awanaa ubuxu heeriyeeye soo baxe udhbaadkii madhiya saacan ulanayay soo doori ishinkan lahaa kaba ammaan roone allahayow adaa daayinoo lagu adeecaayo u siyaadi ummadaadan roob lagu abaaro doodo waa gaba yaroo kooban berigaa ay isleynayeen inagu horta dee barwaaqayn ku jirna oo xaban sirninu marka islaam ahaan loo eego malaa inagu jaanis baabaynu halkaa aynu ka helaynaa inta iyagu isku mashquulsan yihiin tixiro kooban bay ahayd halkaasay ku alalaas waa hagaag alalaas ayaynu barnaamijka insha allah kusoo gabagabayn doonaa guud ahaan daawadayaal barnaamijkii fanka iyo sugaanta ee toddobaadkan oo aan ku wareysanayna xamse maxamed jaamac hudhud ayaa intaan kusoo gabagabeynayaa inta aynu dib u kulmi doono waa cabdicasiis mursal oo dhanka duubista barnaamijka ahaa dhammaantiin waxaan u leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu